dagaal culus oo u dhaxeeya ciidanka Somaliland iyo kuwa deegaanka ayaa maalintii 15aad waxa uu ka soconaya magaalada Laascaanood ee gobolka Sool iyadoo dagaalka maanta uu u muuqdo mid ka duwan kuwii hore ee maalmahan sida goosgooska ah uga soconaya magaalada. wararka la helayo waxay sheegayaan in ciidanka militariga Somaliland ay maanta weerar qorsheysan ku soo qaadeen saldhig ay ciidanka deegaanka ku lahaayeen duleedka magaalada Laascaanood. halkaas waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac. ciidanka deegaanka ayaa la sheegay inay madaafiic adag kala hortageen ciidanka Somaliland ee weerarka soo qaaday, waxaana lagu soo waramayaa in sidoo kale la maqlayo daryanka madaafiicda, waxayna u muuqataa in Somaliland ciidankooda dib loo riixayo. mid ka mid ah saraakiisha hogaaminaysa ciidanka deegaanka waxa uu sheegay in ay ka warhayeen weerarka xoogan ee dhankooda ku soo wajahan, sidaas darteedna ay u aagbadasheen ciidankii Somaliland kadibna meel aanay filin ay rasaas kaga bilaabeen. dhimashada ilaa 5 qof oo labada dhinac ah ayaa la soo sheegaya, waxaana jira dhaawac intaasi ka badan, balse sida muuqata ciidanka Somaliland ayaa weerarkan ku doonayay in ay ku soo gaaraan ilaa gudaha magaalada Laascaanood. xogo kale ayaa waxay sheegayaan in shalay gelinkii dambe ilaa xalay fiidkii ay ciidanka Somaliland adeegsanayeen diyaarado drone gaar ahaan kuwa wax basaasa si ay u qiimeeyaan aagaga dagaalka, balse waxa u muuqatay in uu fudud yahay aaga ay hadda weerarka ku soo qaadeen, balse ay la kulmeen wax aysan ka fileen. diyaarad drone oo nooca yaryar ah ee ay isticmaasho warbaahinta, balse ciidanka Somaliland shalay u adeegsanayeen nooc basaas ah ayaa u suura gashay in ciidanka deegaanka soo ridaan. kadibna waxaa la sheegay in ay la yimaadeen drone nooca habeenkii wax lagu arki karo, waxaana loo badinayaa in diyaaradani dhanka dawladda Djibouti looga keenay. dhinaca kale duqeyn aad u xoogan ayaa weli ku socota magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, waxaana halkaasi lagu soo waramayaa in la beegsanayo goobaha ay degan yihiin shacabka farakutiriska ahaa ee aan ka barakicin dagaalada si loo barakiciyo iyagana. isbitaalka magaalada Laascaanood ayaa gabi ahaanba burbur ka muuqda, waxaana la soo warinayaa in ciidamada Somaliland ay madaafiic ku asqeeyeen isbitaalka iyo nawaaxigiisa iyaga oo doonaya in aan la helin meel gurmad degdeg ah xitaa loogu fidiyo shacabka waxyeelada ay soo gaartay. dhinaca kale qaar ka mid ah waxgaradka magaalada Hargeysa ayaa waxa ay sheegeen in ay u soo baxeen dhanka magaalada Laascaanood si ay u kala dhex galaan ciidanka Somaliland iyo kuwa deegaanka xilli dagaal culus uu ka soconayo Laascaanood. waxay sheegeen in naftooda u hurayaan sidii reer Laascaanood dagaalka looga joojin lahaa, wax walbana lagu dhameeyo miiska wada hadalka bedelkii la dagaalami lahaa. halka garaadada Laascaanood joogana ay sheegeen in xalka uu yahay Somaliland oo ciidankeeda la baxda ama dagaalka uu socon doono waa sida ay hadalka u dhigeen. Somaliland ayaa u muuqata mid geed dheer sii saaraysa rajada ah in dagaalka uu joogsado oo la wada hadlo, oo mar walba xaaladdu markii ay qabowdo waxa ay qaadaan dagaal culus. toddobaadkii saddexaad waxay duqeyn aan kala joogsi lahayn ay ku hayaan magaalada Laascaanood oo inteeda badan duqeyntu ay saameysay. dalalka daneeya arrimaha Soomaaliya gaar ahaan kuwa la isku yiraahdo C6+ ayaa la filayaa inay yeeshaan kulan xasaasi ah oo ay uga tashanayaan aayaha Laascaanood, isla markaana gacan adag lagu qaban doono Somaliland maadaama ay waawaantu diideen. waxaa la filayaa in xubno ka socda dalalka ay maanta gaaraan magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland iyagoo la kulmi doona madaxweyne Muuse Biixi oo ay kala hadli doonaan dagaalada socda iyo go'aanadooda. xilli kala hadalka xukuumadda Muuse Biixina uu aad u batay, falanqeeyaasha ammaanka ayaa qaba in Somaliland aanay dagaalkan joojin doonin laba arrin mooyaane, kuwaasoo kale ah in ciidanka deegaanka awoodooda ay ballaariyaan oo ay ka soo gudbaan magaalada Laascaanood, isla markaana la isla soo gaaro deegaano kale, ama in beesha caalamka ay awood ku qabato maamulka Biixi si dagaalka uu joojiyo. haddaba daawade maxay kula tahay aragtidaada? qaybta hoose commentiga noogu reeb, muuqaalka share gareysoo dad badan u gaara. mahadsanid.